casho sharaftani ayaa astaanteedu ahayd dhiirigelin duco dardaaran iyo sabootin loo sameynayo hablahani maanta u bambaxaya barnaamijka shaqo qaran oo muddada 3 bilood ah qarankooga qalinkooga ugu maqnaan doona waxaana kulankani casho sharafta iyo sabootinta hablaha ku guuleystay barnaamijka shaqo qaran ka soo qayb galay barasaabka gobolka barasaabka xigeenka maayarka xigeenka ahna kusimaha maayarka xogayaha fulinta xildhibaano taliyaha qaybta la taliyaha maayarka gudoomiye xigeenka jaamacadda Timaaday gudoomiyaha waxbarashada gobolka isuduwaha wasaaradda arrimaha bulshada shaqo qalinta iyo qoyska iyo sidoo kale hablahani caawa xafladan loo galeeyay ugu horeyn waxa halkaasi ka hadashay mid kamid ah hablaha ku guuleystay barnaamijkan shaqo qaran oo dareenkeeda cabirtay kamid ah ardayda barnaamijka cadi labaad shaqo qaran aad baan ugu faraxsanahay inaan kamid noqdo waxa kale halkan uga mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lahaa abaabulka barnaamijkan sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada kale ee gobolka inay ku soo dhiiradaan barnaamijkan maadaama uu yahay barnaamij qof walba wuxuu qalinkiisa u gooyo oo ku qaadanayo qorno halkaasi ka hadlay istuwaasha wasaaradda waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale xildhibaan Cabdi Xabeeb iyo taliyaha qaybta booliska gobolka ana aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee quruxda badan ee aynu hablaheeni jaamacadaha dhameeyay aynu imika u dirayno shaqo qaran aynu ku sii sagootayno waxaad geli doontaan shaqadii leedinku tijaabinayay ee aad qarankiina u qabanayseen muddo 1 sano ah maanta waxaynu halkan isugu nimidnay in casho sharaf u sameeyno hablaheeni ku guuleystay shaqo qaran dufcadii labaad oo leeyahay hambalyo sida quruxda badan leh ee imtixaankii ugu soo guuleysateen waan idinku mahad celinayaa ku noqdo kuwii ka soo miro dhaliya magacii gobolkana waad sidataan caawa kulli farxad bay noo tahay munaasabada ka soo qayb galno runtii barnaamijka shaqo qaran iyo galeelideeda iyo fikirkeyga waxa iska lahaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeeynayaa ilaahay khayr iyo akhriya adduunkaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah bidmillaahi kariim waxaan ku rajaynahay in koobka soo qaadaan hadii ilaahay ka dhigo koobka gabilay idinkoo sida aad timaadaan insha Allah bidmillaahi kariim sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee Mustafa Xaaji Cabsi maayarka xigeenka Cabdi Yuusuf Goole ahna kusimaha maayarka iyo sidoo kale barasaabka xigeenka gobolka iyo barasaabka gobolka Maxamed Ismaan Xaaji Axmed waxaan noo sharafa maanta inaanu idinku cashayno oo casho sharaftan idinku sameeyno hablihii maanta ku guuleystay shaqo qaran ee qalinkooda ku guuleystay ee aanu aabe keenin ee aanu suldaan keenin qaraabo keenin ee qalinkooda ku soo baxay horta hambalyaanu dilaanahay ku guuleysateen barnaamijka hirgalay ee uu madaxweynuhu inoo sameeyay ee shaqo qaran idinka waxaan idin leeyahay maanta waxaad ka wakiiltihiin qaranka gaar ahaan gobolka Gabiley waxaan udigu sii maamuusanaa waa hablanimada inamadii basun baa la saaray inta halka la geeyo ku tagay waxaananu jecelahay dufcadda dambana intan ina hablo ka badnaan waxaan leeyahay cid kasta oo wax baratay awal waa la iman jiro hablaha iman jira inama wax la oran jiray deeada mas'uula ka halkan nageeyada waxaasoo dhan imika jawaabteed waxaan ku soo gaabiyay shaqo qaran sanadka dambe suga halka imika aad joogtaan waxaad ka bilaabaysaan mustaqbalkiina qarankiidin ku soo tabcayay baad u shaqayn doontaan waalidkiidin ku soo tabcayay baad u shaqayn doontaan waxaad geli doontaan insha Allah shaqadii qaran baa idin bilaabmi doonta runtii barnaamijka shaqo qaran oo barnaamij aad u qiimo badan oo runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fikirkiisa lahaa oo ku soo daray buugiisii kulmiye waana mashruuca kamida mashaariicda najaxday runtii dhalinyarada Soomaaliland loogu jihaynayo shaqo abuur iyo wadaniyada wajiga labaad xaaji telefishinka qaranka Gabiley.